waddanka ma leeyahay dahab ma leeyahay dhagxaan qaali ah ma leeyahay si aan biyo u soo saarno waxaan u baahannahay inaan helno biyo halkee ku jiraan biyaha marka Soomaalida xaar abaaraa jirto dadka haraad ay u dhimanayaan waa la baaba'ay soo la maqlay aqoon darro na haysata un baa u baaba'ayna ma ahan adduunka wax biilaan u dhinto ma laha waxa ka taqaan macdan hal xabad soo laga sii mid ay gabdhaha jecel yihiin jir halay sheego dahabka wax ka qalsan ma jid ya ma yidhi waa isku raacdan Soomaa wax ka qalsan hadda noo yaal meeshan waxaan maqalnaa resource inuu jiro oo hadda ugu horeeya maqlaysaan shidaal Soomaa waddanka shidaal laga qodi rabaa waxba la maqlay geology ayaan ka hadlaynaa geology sidiisaba adduunka meel walba joogno saddex dhagax dhulka dushiisa saaran saddex nooc dhagax juqraafi wax xustaan oo leena yaa ka xasuusto juqraafi dhagaxanta lagu soo dhigay hal xabale ii sheegay midin bilaada saddex nooc waa dadaab shiileed haye dadaab lakabeed iyo dadaab dhalan adduunka meel walba tagtay China tag Ruushka tag Mareykanka tag saddexdaas dhagax waxa ahayn ma arkiis haddaan tusaale ka siiyo kan waa dadaab shiileedka wuxuu ku sameysmaa magma ama volcano dhulka hoostiisa ku jirta dibadda u soo baxay ee soo qarxay ee qabowday ayaa waxay sameeyaan dhagaxaantan waqti markay joogaan ay soo burburaan roobab erosion waxaa soo aragtay Soomaa iyo biyo markay soo qaadaan oo kale waxa ku sameysmaya dhagaxaanta noocan ayagana maxaa la dhahaa dadaab lakabeed kuwa loo yaqaan labadan dhagax dadaab shiileedka dadaab lakabeed midkood oo is soo bedelay ama kan oo is soo bedelay ama kan oo is soo bedelay ayaa waxa kaaga sameysmaya dhagaxaantan loo yaqaano dadaab dhalan rogan maxaa loo dhahay yani waa dhalan rogan waa isbedeleen say ahaayeen ayaga original ma asal ma ama kan ay ka yimaadeen ama kan ay ka yimaadeen okay maxay faa'iido noo leeyihiin dhagaxaantaas waxaan maqalnaa resource inuu jiro oo hadda ugu horeeya maqlaysaan shidaal Soomaa waddanka shidaal laga qodi rabaa waxba la maqlay shidaalka aad arkaysaan biyaha arkaysaan macdanta waxaas oo dhan waxa ku baran lahayd waa saddexdan dhagax adoo bartay saddexdan dhagax baratay macnaheedu maxaa dhulka dhan baratay kaliya dhulka maxaa ku jira resource ku jira dhagaxaantan ka raadinayna shidaalka waa kuwa u naqaan dadaab lakabeedka ama kuwa ciideedka u naqaan waxa ka raadinayna shidaalka iyo biyaha labaas nooc ka raadinayna waxa ku soo haray labada nooc kale soo haray shiileedkii iyo kii dhalan rognaa ayagana waxa ka raadinayna macdan waa la yaqaanaa Soomaa maxaa ka taqaan macdan hal xabad soo laga sii mid ay gabdhaha jecel yihiin jir halay sheego dahabka kamid ah wax ka qalsan ma jid ya ma yidhi waa isku raacdan Soomaa wax ka qalsan hadda noo yaal meeshan oo 10 jibaar iyo 10 jibaar ka qalsan dahabka ayaa halkan ku tusi doona insha Allah dahabaa jira diamond jira labadaas ee Soomaalida maqnaan waxaa jira dhagaxaanta qaali wax la gemstones loo yaqaan jira halkan waa noo yaala tusaale ka siin doona waddanka ma leeyahay dahab ma leeyahay dhagaxaan qaali ah ma leeyahay yes waa leeyahay ana idin tusi doona xaqiiqo ayadoo ah meel aan tagay waan kaga sheekayn doonaa inta doona insha Allah dahabku waa qiimo badan yahay magaratay oo yani waxa jira mid hoosta kan ugu hooseeyo waa shaqshaq dahab qofku markuu halka yimaado shaqshaq buu ka bilaabaa oo baaldiyar buu qaadanayaa oo wal ag fariisanaya ciid buu intuu meel ka soo qaato ayuu ku shubaya kaas uu shaqshaqaya markuu ka gudbo khabiir ku noqdo markaas wuxuu aadiya daba saarada baalka soo duubaysay kale ciid lagu guriyay hasna waa baartiga labaad ama qaybta labaad warshadaha jira iyaguna yani aad aragteen gudadkii waxa soo dhan oo process mara oo qaar chemical lagu shubayo magaranaysa marka dahabku hadda sidii dheeraa ka saradii ila 4-5 qaybood buu maraa magaranaysa laakiin shaqshaq buu dahab isku tagaa haddana dib loo shaqshaqaya halka skeelka yaro kale isku tagaya marka dahabku 2020 wixii ka horeeyay 2022 aad buu u badnaa ka xamudan nimcada Ilaahay inaan lagu shukriin dhibaatooyin badan oo deegaan ka dhacay systemkii meesha ka fog xaqiiqatan odayaal iyo magaranaysa ay dhaqan ayaa meesha hadda mas'uuliyadda haya magarat marka aad buu dahabku yar waa wareeray oo marka dahabka la waxa la garan jiray xabado iska dhacaya nimanka bireeya magaranaysa xoogaadi waxa haysta hadda la isku mashquuli maayo qof walba haduu soo helo
جرام وحكي يبغى فرح سيء أول شنطة جرام 10 جرام لما يشيك تجنن عادي اسكت ما أنت حمل سهلين بأورنج رقفة 5 جرام بس ها بأورنج لكن ما أنت جرام مده شيء جرام كني والله سلامة يا أنت القوي جرام كني مثلا 75 إلى 78 ملها أيدي ستيت ملها ومرة هذا عادي يا سيدي ميراث لكن مركز إكتي دبعتها أركتين أنا كوسا صارنا يروح عالم كتشو وده واحد سلوم معه با مقارنة ذهب كينا بلاش لو قاطع حقيقة كذا أركتين مركا نيو كور حد درتن سو صارك مانكي محا سو صار حقيقة والله هذا بهالكنا أركتان صبت ذي لها دواء سداء أفقران بكتير سبتي لا دافع بحسها وصبتي أحد اثنين ثلاثة أو أربعة ومنانين سمع سو ثلاثة مركا أول لد مركا عقدة اللي بالحجرة كوما شبيه أنت أيوه أسوق السكلين نجي مركا waxaa gacanta ku haya dahab gacanta ku haya waxaan inta u jeedaan waa 5 gram $500 ayaa jeebkaaga isaga qaadanaysa iska gashanaysa jeebka dhulkana nimca taala laakiin dib baa laga soo maray ha qofka hadda waxa arkay wuxuu u maleynayaa ciid caadi u maleynayaa mana aha hawl baa laga soo maray shaqi iyo wixii aad soo arkaysay haday laga soo maray dahabka wuxuu ku sameysmaa inta badan dhagaxana arkaysaan isagaas inta la burburiyo oo la shiido dahabka laga soo dhex saaraa dahabka sidiisa nool ma waa la helaa asagoo nool oo kuuskuus ah waa la helaa laakiin waa naadir inta badan lama helo dahabka waxa la helaa isagoo ciid ah isagoo dhagaxaanta ku jira iyo isagoo negative ah oo dhulka dushiisa saaran halkan waxa kale oo noo yaala dhagaxaanta qaaliga ma qasheen dahab wax ka qaalisan ma jiro ana idin wax ka qaalisan waxa idin hayaa laba dhagax oo kamid ah dhagaxaanta qaaliga ah markii diamond laga soo tago diamond adduunka ugu qaalisan diamond marka laga soo tago ku soo xigo waay ruby iyo emerald ayaa kala lahaa dahabka garaamkiisa meeqa waay iska illow isdeesha ma ahaan jir hadda ka war hadda laakiin waa kacay boqol iyo gabdhaha 150 wada maruuya ya garaamkii ya 150 kana meeqa ku qiyaasaysan garaamkiisa ya 200 300 kun xataa gaar caadi waa gaari kartaa kun xataa gaar ay kun xataa ma dhama aano garaamkiisa ka hadlooyo aniga dahabka in laga laaneeraysan ay tusiro macna oo laga qaalisan yahay karad aan isticmaalaa muxuu ahaa rubiya la dhahaa halkiisii garaam inta badan dhagaxanta qaali karad wax la isticmaalaa karad 1 karad muxuu dhigmaa 0.2 gram waay xitaa gram gaariya halkiisii karad ayaa waxa lagu helayaa 15,000 ilaa $30,000 tawrama ya halkiisii karad 15,000 ilaa $30,000 lagu helayaa mararka qaar waxa la garaamkiisii 15 ilaa 30 lagu helaa mararka qaar sidoo kale kan emeralka waa noocaas oo kale noocyadan ay u jeedaan waa dhagaxaanta qaaliga ah gemstones iska loo yaqaano kasoo tago dahabka iyo dhagaxaanta qaaliga marka laga soo tago waxaa jira wax la hay critical minerals wax la ayaa jira maxay yihiin kuwa laga sameeyo electric vehicles oo hadda soo baxay baabuur ma maqasheen oo battery ku shaqeeya sidaal fidwa laga tagayo sama baabuur battery ku shaqeeya mobilka saa u jaajaraysanaysa camal batteriga soo jaajaraysanay gaariga soo saaranay nabadii waaso maxaa laga sameeyaa macdanta laga sameeyaa halkan waxa idin kugu hayaa macdanta laga soo saaro lithiumta batteriga muxuu ku shaqeeyaa batteriga waxa laga sameeyaa lithium laga sameeyaa cobalt laga sameeyaa dhagaxan aw jidaan waa macdan libadulaayada loo yaqaanaa lithiumta laga soo saaraa lithiumta maanta waa waxa ugu shidan loo yaqaano critical minerals macdanta dhaqaalaha ahaan looga faa'iideysto tiknoolajiyada looga faa'iideysto kuwa waxa jira oo loo yaqaan strategic minerals jiro oo difaaca iyo diyaaradaha iyo hubabka laga sameeyo waxaas oo dhan maxay yihiin waa macdintaas oo dhan xagee laga helayaa wadankeena yaa ka soo saari kara qofkii geology barta anaga dhan leh ma aha qofkii geology barta waay halkan waxaa horta noo yaala inaan fiilooyinkan aragteen fiilooyinkan maxay yihiin iyo qalabkan halkan noo yaala markaan rabna biyaha inaan baarno biyaha xagee ku jiraan dhulka hoostiisa ku jiraan biyo waxaa jira waa soo qaateen kuwa dhulka dushiisa saaran iyo kuwa dhulka hoostiisa biyaha joofiya maxaa la leeyahay saddexiyada underground water iyo ground water halka lahaa
biyaha marka Soomaalida waxaa aragtay abaaraa jirto dadka haraad ay u dhimanayaan waa la baaba'ay soo la maqlay aqoon darro na haysata un baa u baaba'eenaa maahan adduunka wax biilaan u dhinto ma laha ya waxaa maqlaysaan gobollada ayaa waxaa ka dhac dagaal maxay salka ku hayaan biyo soo ma biyo salka ku hayaan qabiila kan agdegay iga kac biyahayga inta i yeelan waa la isdagaalaa nafaa lagu weynaa haddii laakiin resourciga aan haysan laga faa'iideyn lahaa ee la soo saari lahaa waxaas oo dhan ma dhaceenba si aan biyo u soo saarno waxaan u baahannahay inaan helno biyo halkay ku jiraan meel walba ma ku jiraan dabcan waa laga helaa meel walba markii dhagaxaanta idii sheegay meelay ku samaysan yihiin taqaniya ku yihiin biyaha ha laga helay intee mitiiroo la qodaa meeshan biyaha ku jira macaan miyaa dhanaan miyaa waxaasoo dhan maxaa ku ogaanaya qalabkana ii sheegaya qalabkaanaa qaadanaysaa dhulkaa lagu mudmudaa waxaa la geophysical survey ayaa la dhahaa waxaa ogaanaysaa biyaha inta mitir ay ku jiraan macaan dhanaan waxay yihiin already waaba taqaanaaba intaas hala qodo injineeradda waa tana magaca sihaam oo geologista ah waxaa leeyahay injineer sihaam kaalay halkaan biyo ma laga heli karaa yes waa soo baxay xafiis fadhisaa